annagu waxaan leenahay meeshan xidigaha geeska tacab baa nagaga jira. tacabkay nagaga jira waa ka magacana ay yeesheen u yeelay. shacbiga tacab baa kaga jira, dadkana tacab baa kaga jira. waynu la ilaalinaynaa, way ku dhalinyaroobeen. ta adigu wasiir ahaan adigaa xidhayna. anugu waxaan ka mid ahay xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland mabdi'iyan annagoo ilaalinayna xukuumadda iyo qaranka. wax alla wixii aanu qaranka gaf u moodno waxaan wax kaga qabanaynaa si kasta oo sharcigu waxaynu uga foojignaanaynaa inagoo isku duuban. waxaynu uga foojignaanaynaa inagoo maqalka dhawaaqa dhagiheena soo gaaraya ama akhriska aynu ku akhriyayno meel yar Facebooka inaynu fahno qofkan hadlaya waa kuma. qofkan hadlayana sidee buu qadiyadeena ku yahay, ma ehel buu yahay, sacadow buu ku yahay. inaynu u midaysnaano askari iyo wariye iyo shicib iyo fanaan iyo cid walba. horta marka hore waan ku sixi lahaa xidigaha geesku ma xidhna. waxa xidhan xubno ka mid ah dhowr qof baa xidhan. dhowrka qof waa dhowr qof oo intay ka tageen magaalo madaxda jamhuuriyadda Somaliland ee Hargeysa oo ay Nairobi tageen dalkaasi Kenya, dabadeetna iidii ku qaatay Muqdisho, dalka aynu dariska nahay ee Soomaaliya. haddii se aad uga jeedo qof ahaan ama wasaarad ahaan ma wasaaradday u xidhnaayeen? maya, wasaaraddu ma aha station police, wasaaraddu ma aha military, mana aha police. wasaaraddu amniga ma ilaaliso ee wasaaraddu amniga way xoojisaa. qayb bay ka qaadataa oo kaalin baynu ku leenahay, xil baanaynu qaranka u haynaa. marka waxaasoo dhan laga yimaado waxaa jira jamhuuriyadda Somaliland, waxaa jira shuruuc ay leedahay, qadiyadna way leedahay. shuruucda ay leedahay ee dalkeena taala waxaynu ogolahay oo ay jamhuuriyadda Somaliland ogoshahay in qof kasta oo Soomaali ama Djibouti aado ama Ethiopia aado ama Kenya aado ama ha ahaado jamhuuriyadda Soomaaliya ha ahaade uu ku noolaan karo, halkan kana shaqaysan karo. laakiin mansabyada siyaasadeed iyo wixii la mid ah ayaa ka xadidan. inaga haddaba jamhuuriyadda Somaliland maxay ka qabtaa qofka halkan ka tegaya ee magaciisu saameyn leeyahay ama popularka noqday? hadduu siyaasiyey, sheekh weyn yahay, fanaan weyn yahay, maxaa la yidhaahdaa qof xil hayana isaga iska bedela. qofkaasi magaciisa la bartay ee meesha tegaya ee Muqdisho intuu tago maxaa ugu jaban jamhuuriyadda Somaliland iyo qadiyadii? waxa ugu jaban walaal waa ogtihiinoo dalka Turkiga tiraba 2 goor baa iyo 3 goor baa wada hadallada jamhuuriyadda Somaliland iyo Soomaaliya lagu qabtay. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh, madaxweynaheena Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo wuxuu la hor fadhiistay ee ugu weynaa ee uu weydiisanayay waxay isdhexgalka dhinaca fanka, isdhexgalka dhinaca dhaqanka. wuxuu weydiisanayay qiimahaasay ugu fadhidaa isaga. innagana waxay inoogu fadhidaa magaalada Muqdisho iyo madaxweynaha jooga oo ina sheeganaya inaynu ka midnay, oo ina sheeganaya inay ina xukumaan. haddaynu fursad u siino inay halkana iman karaan, iskana tegi karaan, inaguna aynu u tegi karno, waxaynu ka markhaati kacaynaa wixii ay sheeganayeen. marka inagana waxay inoogu fadhidaa qiimaha diidmada aynu diidnay inay wada hadalka qayb ka noqoto isdhexgalka intaa leeg ee dhaqanku, dhinaca dhaqanka iyo siyaasadda, dhinaca dhaqanka iyo siyaasadda. laakiin haddaad igu tiraahdo gaari muus siday baa xaggaa ka yimi oo gaari kaloo muus siday baa xaggaa tegey, adeer muusunbuu siday, kaasi saameyn u lahaana ma jirto. muuskaa xabaddaa muuskaana inta cunaysunbaa aragtayba. laakiin waxaanu ka hadlaynaa qofka weyn ee magac yeeshay ee siyaasiya ee sheekha ee shariifa ee caalima ama fanaan weyna ee sii socda ee soo socda. dhalinyarada xidigu markaad ii sheegto timaado waa dhalinyaradeen, waa caruurnimo, way qaadi kartaa. in magacooda iyo da-dooda kala weynaadeen baa dhici karta. inaguna aad baynu u bumbuunina, marka inay xamiliba waayeen baa dhici karta. dhalinyaradeenaasi inaga waajibkeena saaran waxa weeye inaynu u caqli celino. wixii shuruucii qarankaa ku leh, dalkaa ku leh. iminkana saaka waa la sii daayey
marka la sii daayo waa la iska sii daynayaa laakiin maaha macnaheedu in mar walba inta qaaryaacaan intay tagaan haddana la iska sii daynayo ma nacasayn karayaan dowladnimada iyo cidda qadiyadda ilaalisa ma nacasayn karayaan